waxaa maanta magaalada Berbera si weyn looga xuusay 23 guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland ee 1995 munaasabad weyn oo lagu xusayay maalintaasi ayaa waxay ka dhacday xarunta ciidanka ilaalada xeebuhu ku leeyahay magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland wasiirka horumarinta biyaha ee Somaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo mas'uuliyiinta dekedda Berbera xildhibaano ka tirsan golaha guurtida iyo golaha wakiilada ee Somaliland iyo madax kala duwan oo aad u tiro badan halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Saaxil Axmed Saalax oo isoo ka waramay taariikhdii uu soo maray ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland haddii aan dib ugu noqdo taariikhda ciidanka waxa la aasaasay 1995 waxa lagu aasaasay magaalada Berbera lagu aasaasay tikreeto madaxweyne oo markii Allah u naxariistay madaxweyne labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Maxamed Ibrahim Cigaal ayaa aasaasay xilligaa waxaa lagu aasay dhowr iyo 80 xubnood oo kamid halkan laga qoray iyo 3 dooyadoo noocan dheereeya taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland Maxamed Xuseen Faarax Xiiran oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay xuska maalintan ay u sameeyeen ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland waxaan u aasteeyay maanta oo nasiib weyn u aasteeyay maalintan in lagu xisaabtamo sanadka dambe maxaa la qabtay haddii la iska socdo waa dhibaato sanad walba haddii la ka dhigo marka la shaqeeyo waxay ku fiican tahay in la xisaabtamo oo la sanadkii maxaa noo qabsoomay maxaa adduunyaanu helay maxaanu qabanay kotrmaan maxaanu qabanay mataqaana taariikh maxaanu qabanay inta lagu xisaabtaa waa inta sanadka dambe insha Allah baan ka shaqeyn doonaa hadda sheegan ma yargii ugu horeeyay xilkoodii laakiin halkii baan ka sii qaadaya waxa igu maqaalaa 57 sarkaal baa dibadda loo diray waan xoojin doonaa isgaarsiinta tayeenta ciidanka tababarka casriga dhamaantood hadii la ka dhigo waxaan jecel la codsanaynaa wasaaradda maaliyadda si ay ugu taxadarto ciidamada kale shidaalkooda inay badana u eegto oo aanay u eegin inuu yahay gaari yaro shidaalkiisu ay meel la gaareen baddu inay hesho shidaal badan lagu ilaaliyo waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay maariyaha dekedda Berbera Saciid Xasan Cabdilaahi iyo sidoo kale maamulaha shirkadda DB Wall ee maamusha dekedda Berbera Subachai waxayna sheegeen inay wada shaqeyn dhow ay leeyihiin ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland iyagoo ku bogaadiyay sanad guuradan 23aad ee ay maanta u dabaaldegayeen waxaan rajaynayaa insha Allah bismillaah ta'ala in agab fara badan loo heli doono maadaama imika dawladdu wada shaqeynteedu ay tahay mid taama mid isku xiran gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay sanad guuradan 23aad ee xuska ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland runtii aad baan ugu amaanaya ciidamada badda waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa waxaad u dhaarateen oo naftiina u horeysaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland habeen iyo maalin ciida lagu seexdaa ee Somaliland ku gamaan ee badeena dheer 850 kilomitir lagu nagaadaa lagu seexdaa waa ciidamada waa idinka weeyada lagu nagaadaa abaalkiina ma gudi karo qof bini'aadam waxa gudi karo Ilaahay subhanahu wa ta'ala runtii waan ognahay ciidanka ilaalada xeebuhu roolka ay ku jiraan halka ay kaga jiraan nabadgelyada ilaalinta xeebaha kaga jiraan waan ognahay ee ka gobol ahaan baan ognahay muddadii aanu gobolka joogay ee 5 bilood ahayd heerkii ay shaqadooda qabteen waa runtii niman lagaga seexan karo haddana shaqadiisu si aan wararka kala socono ee aanu ku aragno wax weyn bay qabteen ilaahay waxaan ka rajaynayaa wixii hadda ka dambeeya waan u ducaynaynaa maanta dunidu waxay aragtay in dhammaan xeebaha badda cas ay yihiin qaar sayfa oo maraakiibta dunidu ay marayso himiladaas ummadda reer Somaliland ay in badan ku taamayeen waxa qaybtoodii ka soo baxay ciidanka ilaalada xeebaha aad iyo aad baan runtii ugu mahadceliyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Somaliland Maxamed Xasan Gaafadhi iyo sidoo kale wasiirka horumarinta biyaha ee Somaliland Salebaan Cali Kooro iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay maalinta lagu xusayo sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegtay xilligii aasaaska ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland ciidanka ilaalada xeebuhu wuxuu ka mid yahay astaamaha ugu qaalisan ee uu qaran leeyahay dawladaha qaarkoodna ciidankoodaba waxa weeyaan waa ciidanka badda weeyaan sida Mareykanka oo kale
quwadooduba ay tahay ciidanka badda waxaa mudan in ciidankaas uu ahaado ciidan dhisan oo beega waajibka looga baahan yahay waxa ayaan darro ahayd in 23 sannadood marnaba ciidanka xuskiisa aan la soo qaadin waayo ciidankana ahaanay ku ahayd waana harumar maanta la gaadhay waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadnaqayaa inuu jananku admiraalku inuu arrinkaas suurtageliyey generaalkuna wuu sheegay taliyaha guud ee ciidanka baddu baahiyaha jira ka xukuumad ahaan way mudan tahay isagoo uu noogu mudan yahay wasiirka maaliyaddu in baahiyaha ciidankan maadaama ay tallaabooyinka ugu waaweyn ay ka mid yihiin inay khayraadka difaacaan dalka dhaqaaluhu ka soo gelay inay qabtaan hantida kontrabanka ee ka cararaya dekedaha waxay sidoo kale ay ciidamadu ay dabaaldeg ka sameeyeen dhinaca badda iyagoo halkaasina ku gaafureegayay doonyaha aadka u dheereeya ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee dabaaldeg noocan ay sameeyaan ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland iyagoo si weyn u muujiyay sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhinaca ilaalinta xeebaha Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera